sanadkan waxyaalihii aan arkaynay inay aad muhiim u yihiin waxaa ka mid ahaa daraasada aan ka samaynay aqoonsiga oo aan u arkaynay wax saamayn xoog leh ku leh state buildingka oo dhan meel kasta oo la sameeyo tan tusaale ahaan aan hadda meesha ka sheegayay dhulka oo dhan oo Soomaaliya ku yaala ama Soomaalida oo dhan dhulkeeda waxa registered ah oo dawlad ka register garaysan waa tiro aad u yar oo aan 10% dhamayn dadka Soomaalida in yar ah waxay wadataa maartay akoontiyo waxay leeyihiin oo bangiyo inta iska dhaaf canshuur bixiyaalka nambarkooda waa wax yar oo kooban marka si waxaas oo dhan wax looga qabto waxaad u baahan tahay dawladdu waxay u baahan tahay dadka ay dawladdu u tahay inay u tirsan yihiin inay taqaano inay ugu xiran yihiin maaragtay aqoonsi iyo meel ay u raacdo oo dambiyadii iyo meel walba iyo laga fiirin karo marka annaga macad ahaan waxaan u arkaynay daraasadaas inay ka mudan tahay waxyaalaha kale oo ayadu maadaama ay saameyn badan meel ku leedahay saasaan u goosanay waana daraasad weyn waxaa hogaaminayay Cabdinaasir Shaalle oo mutakhassis ku ah arrimahan haddana PhD ka sameeyay jaamacad ku taala Netherlands oo Maastricht leeyahay wallahi shirkani aad u muhiimad u leeyahay waxa ugu weyn oo muhiim u leeyahay waxa waaye in hadda in su'aalaha la weydiinayo meesha waxa ku jiray oo la isku haysta kaarkan yaa xaq u leh kii wadannimada miya ma aha miya wadadku waa jahwareersan yihiin meeshii lagu tiri lahaa jahwareerkaas oo dadka si sahal wax loogu sharxi lahaa waaye waa mararkii mar walba oo la sii badiyana waxay tusinaysaa hadda meeshaan ka muuqata su'aalaha dadka waxa ku qafilan kii oo Soomaalinimada marka qof kasta oo Soomaali ah bas kaarkan iska leh wax cid kale ma taaban kartaa ka dhacsan mana aha saas waa wax kale waaye marka cid kasta oo dalkan joogto sharci ku joogta qaadan karta waana ujeedada waxa waaye in meel markay tagto lagu aqoonsado waa intaas waa ujeedada